maanta oo Arbaca ah 11 bisha January sanada 2017 waxaa la doortay gudoomiyaha golaha shacabka waxaana loo doortay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. haddaba Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waa kuma? Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa uu dhashay sanadii 1945 waxaana ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dhanka waxbarashada marka aan ka eegnana waxa uu ka baxay jaamacadda ummadda waxaana bartay sharciga islaamka iyo qaanuunka. dhanka shaqooyinka marka aan ka eegno Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari 1962 waxa uu noqday macallin. wasiir ku xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ayuu sidoo kale soo noqday. xildhibaan ayuu sidoo kale soo noqday. wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ayuu Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari soo noqday. wasiirka arrimaha bulshada ayuu sidoo kale soo noqday. la taliyaha xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee dhanka dastuurka ayuu Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari soo noqday. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari sidoo kale waxa uu soo noqday gudoomiyaha guddiga khubarada dastuurka. waxaa laga soo doortay magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed. taariikhdu markay ahayd 28 bishii 8 2012 Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaa loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. jagadaas uu hayay ilaa 2016. maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bisha koowaad mar kale ayaa loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka.